بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fiirsadayaal way baasan lena sanad fayla haka dhawaada warka TV-ga oo kooban qodobada ka fiirsan doontana way baa kumid aha wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka koonfur galbeed iyo wayba degmada Diinsor kuwada kulama madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo reedan ka nagaday magaalada Baydhabo akhbaaradka banaanka isinka fiirsan doontaan warka wayba kumid aha madaxweynaha Mareykanka oo hanjabi Iiraan ciidamo dheeraad ah oo darahayo bariga dhexe fiirsadayaal hamiinama arbaace oo khamiisna galaha ay taariikhdana iyo ka eedanta kowda bil koowaad January sanadka cusub ee 2020 ka hana soo baxayna qodobadii warkaadana ka dhawaada yoogi oo fisanga wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka koonfur galbeed iyo wayba degmada Diinsor kuwada kulama reedlanka dhisahaya golo deegaan oo jaweel dhadaas degmada Diinsor waako maxamed shirkan geeka ka dhig degmada Diinsor gobolka Baay waliba uu sahaayay kooyo ku qayb galayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed wasiirka qorsheynta agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha waxda dawladda hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya kusimaha maareeyaha mashruuca xasilinta S2S xubna ka socday wasaaradda hanraabta dawlad goboleedka koonfur galbeed maamulka degmada iyo qaybo shal duwan ee bulshada ka nool degmada Diinsor walibana uu sahaayay ko wasiirka arrimaha gudaha uu kala hadlayay bulshada silindar dargili waana la handhameystir dhismo golo deegaanka degmadaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed Axmed Madoobe Nuuno Maxamed yaan ka horeyntii goobta ka hadalay usugona bogaadi odayaalka dhaqanka sida wanaagsan iyo kaalin ku qaadadahayaan waana uu sheegay intii uu ku qayb galiyay hanraabta dhismo golo deegaanka sida in fayl haata adag oo fiican ay qabteen oo u samreen oo u dhabar adeegeen mahadcelin ay leeyihiin waxa kale u mahadcelinayaa odayaashii iyo malaqyadii isamadoonadii inuu noqon doono wax saameyn ku yeelanaya degmada Diinsor hadduu alle mashanta sano ay soo socdo sababtoo ah qorshaha horumarinta koonfur galbeed ee la qoraayo waa 5 sano beriyu ka bilaabana hadduu alle sanadka cusub 2020 ilaa iyo socona 4 ilaa 2020 5 sano way 2022 meelaha oo haddii dawlad la yiraahdana meelaha oo dadka ay ku hormaraan ama dib ugu dhacaan waxa waaye miiskii wada hadalka qofka duusan fadhinin iyo markii qorshihii la dejinayo qofka duu ka maqan yahay adi baahidaada waa ka maqnaanay laakiin hadda cid walba wasaaradda qorsheynta imaado si walba ay wax u dhacaan Diinsor baahideeda dokumentigaas ay ku qoran tahay waxaana la ogyahay in reer Diinsor ay ka imaaday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose dib u heshiisiinta dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Maxamed Abuukar Cabdi iyo waliba bulshada degmada Diinsor uu sheegay intii haddii dejiyaan waan ha gudbiyaan ergadaha dooradaas golo deegaanka degmada Diinsor odayaalkan iyo ka heliyaan walibana uu sheegay intii ergada lagu fado intii xubno fara badan iyo ku mid naqdan hanraabta golo deegaan la leeyahay wala ku shaqeeyahay deegaanku xaafadaha tuulooyinka dadku kooyo ma dad oo wadamo kale iyo bilaayig meelo kale ma ilaahay wala ku gobodan fado markan hooyooyinka waa dadkan ka horeeyay oo ka sakora deegaanka dhibaatada haysata may tuuladu ku jira idda may problem haysata onaga may baahan maamooyinka kooku waana fahmo koraan markan way fadaane odayaasha dhaqanka iyo eedan mahsan ani may ilaahay arintaas ballan qaada markan way fadaane maamooyinka may ilaahay iyo gabrob ani fursadin ka wanaagsan ay Diinsor ka helaan hadii golo deegaan la dhisi leeyahay xudura la dhisi berdaale la dhisi ونوي فضل مركز أساس دينسور ولا تاسكو بدله ما يلكو كبدله كور أني قبلها أنك بدن قلب ديجان تاريخ ده حتى سومالي لك تسوي نيسن سمايتان إذن تاريخ ولا سمايتان فضلتنا أدينه الفضل شيء إني لا كاسوس الميلول أو بيعش دعانك أو ما إله راي ده حقيقة ذي قاموين وكجيس دي برنامجكم ولين يالله مرتلهم كهذا دور ونمرول ونكتح جليان برنامج كنا سمايان فضل ما يواني لد تجي وفضلنا أو بيعش دعانك عطسي إها حاسين كعطس أنا وناتم كوين إها أني أرجع سدنك أخسر بدن لها جلي
langnan ka dheganaa sababtoo sabab lan haysada kordhan ma jir sabab ala tageekan arag horta meelar hollan boqol kwal iyo hoshan boqol kwal wal macna leh tiya shal kuriyaan male laakiin boqolkaas la eri boqolkaas ergada qabiilka walaada ka toosiisan qaybsatan wasaaradda ama jeebta waraha ku qortay san qaybsatan san arag laakiin isin la seen qodin isin kaliida haan leetin laakiin markii isin iska heli waytan isin sheendado waytan meel samee ogow wal markaasi meelar ay mal surnaado ani la samee waajib haddii isin keli waytan suurtageli waytan walaa sheendado waytan gudbi waytan mal an meelar ay ma suurtagalaas ani banaankaas la kusurum dadki keli wayan leh dawladda markanka dambeeyay walaa dawladda tan iyo go'aan qaad degmada Diinsoor ee gobolka Baay waliba maalmoogin kadib dambooyin ka dareeray shir lagu ka aransado sidii golo deegaanka degmadaasi lan dardar geli lahay waana laan hulo lahay taasi oo hata meel fayl marahayta Maxamed Aadan Soodaal TV-ga Warsan degmada Diinsoor ee gobolka Baay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya way baa u sareedan ka nagaday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka koonfur galbeed ee Soomaaliya faafaynta warkan way baneen haya Cabdullaahi Nuur Aadan Jeceelowma madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo safar shaqa oo qaadaday muddo 7 maalmood ay usan ka maqnaay magaalada Muqdisho iyo reedahan ka nagaday magaalada Baydhabo garoonka diyaar deegaanka waliba ka dhawaayay lamada gola wasiirada iyo xildhibaanada koonfur galbeed waxaana ku tirsan odayaasha dhaqanka iyo qiibo shilduun ee bulshada madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagraan yaa waliba uu ku warbiyay safarkii uu ka saday magaalada Muqdisho iyo waliba saas oo kala tababar uu dhawaan meelahan ka hiriyay ciidamo ku tirsan booliiska koonfur galbeed oo lan tababari gobolka Shabeellaha Hoose salaan kadib waxaan kaga mahad celinayaa soo dhaweyntii qiimaha badneed oo na soo dhaweyseen idinka iyo gudoomiyahaba anaga saa ogtiin safar gaaban oo waxaan aadnay Muqdisho ah oo shaqo ah safar shaqo aha iyo wada tashi inta bay isugu jiray waxyaalaha aan u baxnay oo dhan kulli alxamdulillah waa noo suuroobeen oo noo suurta galeen oo ugu horeeyay ciidankii booliiska ahaa ee koonfur galbeed ee gobolka Shabeellada Hoose 29 ka tababarka loo xiraayay tababarkii waa loo soo xiray howlgalkoodii iyo deegaanadii loo tababaray way tagi doonaan insha Allah shaqooyinkii kale oo u tagnay oo ahayd inaan madaxda dawladda aan kala kulanno arrimaha amniga iyo dhaqaalahaba intaba shirarka asagaana si guud iyo si gaar ahaaneed iyo si gooni ah u galnay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagraan madaxweynaha koonfur galbeed saas oo kale waliba uu ku taasiyay waana wala kumaada ka tilmaamay qaraxii ku dhii 28 bilyan una hadhaafni sanadkii 2019 isgoyska Ex Control Afgooye walina uu dadkii meelo ka amoodi Ilaahay uu ku toogay in jannatul firdawsi Ilaahay uu ku waraabi saas oo kale dadkii ka dhaawacmay caafimaad uu san rajeeyay intaan meesha joognay waa ogtiin waxa dhacay qaraxii kuma oo Ex Control ka dhacay meesha waa ogtiin waxay ahayd kala gooyskii Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir kala wareegay ahayd baabuurta ay ku kala wareegaysay xilli subaxa oo dadka ay ardaydan iskool soo aadayeen dad iimaanka alla ka qaaday oo waxay u turayaan aan lahayn oo habeen iyo maalin go'aansaday inay shacabka Soomaaliyeed oo waliba tabarta daran ay laayaan ay ahaayeen dadka Soomaalida ugu fiicnaa ayaa runtii ku dhintay dadka ku dhintay meeshaas ku shahiiday dadka Soomaalida ugu fiican ay ahaayeen Soomaaliga waxa ugu fiican qofka xoogsatada ah tabartiisa iyo shaqadiisa yaqaano dantiisa qaaska ka shaqeysta Soomaalinimadiisa Ilaahigiisana garanaya oo shacabka way dadka Soomaaliya ugu fiican dadka ayaga haba ku dhamaaday Ilaahay u naxariisto dadkii helkaana samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta xanuunsan dhaawacana Ilaahay caafiyo Cabdullaahi Nuur Aadan warbaahinta Warsan Baydhabo fiirsadayaal meelihiin warkaas ku fiirsada ay tan way baa TV-ga Warsan xaruntiis magaalada Baydhabo akhbaaraadka banaanka Warsan Media Network
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wayba uusan goondiyay dawladda Iran kureed markii la eedeeyay intii weerarka qaaday safaaradda Mareykanka ee dalka Iraq dhismo safaaradda ee magaalada Baghdad iyo wayba ku dhiyay mudaharaadyahana soo ku dhirfanyanga mudaharaadyada weerara iyo dawladda Mareykanka ka qaaday meelasa guudaan fiirsadayaal warkaysan kula dareertan TV-ga warsan xaruntiis magaalada Baydhabo sununkan inkage warkaan Shuur Ismaaciil Axmed ee dareer siyaasi intii warkan ka lamid ah reedanku kulmaana sida iyo nabadgelyo